Erdogan waxa uu ku dhashay magaalada Istanbul 26 February sanadkii 1954. Waa madaxweynihii 12aad ee dalka Turkiga muddadii u dhaxaysay sanadihii 1994 ilaa sanadkii 1998. Waxa uu ahaa duqa magaalada Istanbul 2003 ilaa 2014. waxa uu ahaa ra'iisul wasaarihii 36aad ee wadanka Turkiga sanadkii 2001. Erdogan waxa uu aasaasay xisbiga cadaaladda iyo horumarinta ee loo soo gaabiyay AKP, kaasoo 3 jeer oo isku xigta uu ku guuleystay doorashadii guud ee dalkaasi ka dhacday sanadihii 2002, 2007 ilaa sanadkii 2011. Erdogan waxa uu ka soo jeedaa qoys sabool ah. Yaraantiisna waxa uu magaalada Istanbul uu ku iibin jiray qare ama sida loo yaqaan xabxab si uu aabihii ugu kaalmeeyo quudinta qoyska oo aad sabool u ahaa. Waxa uu ka qalin jebiyay jaamacadda Malmala oo uu ka bartay cilmiga dhaqaalaha. Erdogan waxa uu noqday ciyaartoy caan ah isagoona u ciyaari jiray kooxdii Kasambasa muddadii u dhaxaysay 1969 ilaa 1982. ka hor intaanu noqon duqa magaalada Istanbul. Sanadkii 2003 markii uu noqday ra'iisul wasaaraha Turkiga, Erdogan waxa uu ka shaqeeyay inuu Turkigu gaadho deganaansho siyaasadeed, dhaqaale iyo ammaan. Waxa uu la heshiiyay Armenia, waxaana uu xidhiidh la furay Greece, Azerbaijan iyo Jamhuuriyaddii hore ee Sofiyeetka. Waxa uu soo celiyay xidhiidhkii kala dhaxeeyay dalalka Carabta, isagoona fasaxay inay fiisa ahaan ku soo gali karaan wadanka Turkiga. Sidoo kale waxa uu xoojiyay xidhiidhkii uu Turkigu la lahaa wadamada reer galbeedka. 2009 Istanbul waxa loo aqoonsaday caasimadii dhaqanka Yurub. Waxa uu sidoo kale dadaal ku bixiyay in uu Turkigu ka mid noqdo midowga Yurub, arrintaas oo uu horumar ka gaadhay. Haddaba daawadayaal, barnaamijkeena xiisaha leh Diiwaan intaas ayaan ku soo gabagabayn doonaa. Barnaamijkan intuu socdo waxaan uga mahadcelinayaa daawadayaashii daawanayay barnaamijku intuu socday. waxaan idin la socodsiinay anigoo Cabdikhadar ah. waxaan idinku dhaafayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh. Sevgisiz, susuz, havasız ve vatansız bırakma Allah'ım.